habeennimadii xalay dood cilmiyeed ay iska kaashanayeen hay'adda wadaniga ee Soydafo iyo Midowga Yurub ayaa aqoon-yahanka gobolka Sanaag u qabatay dood cilmiyeed taas oo lagaga doodayay sidii ay aqoon-yahanku uga qayb qaadan lahaayeen nabadda waxaana ugu horeyn kulankan ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay Cabdisalaan Ibraahim Ducaale oo ah sarkaal ka socda hay'adda wadaniga ee Soydafo iyo maamulaha hay'adda Soydafo ee magaalada Ceerigaabo Cabdirashiid Cali Axmed iyada kooban baan doonayay inaan ka ilaahdo hay'adda Soydafo. hay'adda Soydafo waa hay'ad maxalli ah oo u taagan mar walba kaalinta ka banaan bulshada inay buuxiso haday noqoto dhanka bini'aadantinimada haday noqoto baahiyaha kale bulshadu qabto. waxaan wada ogsoonahay gobolka Sanaag in gobolada kale Soomaaliland marka la eego inuu aad uga dambeeyo dhanka nabadgelyada. si loo soo kobciyo dhankiisaas waxaa khasab ah in la xoojiyo ama la engage gareeyo dhalinyarta. dhalinyarta waxyaalaha koowaad ee lagu xoojin karayo si ay u dhisaan nabadda ay bahalka bulshada ku wada noolaanayso waxaa khasab inay helaan madalo ama forums. madaladaas waxay u fududeynayaan inay ku soo bandhigaan fikirkooda iyo aaraadooda ay kaga qayb qaadanayaan maxay haytay nabad ilaalinta ama nabad dhisidda. waxaan wada ogsoonahay populationka mar kasta Soomaalidu numberka dhalinyarta inay 70% gaadho. haddii wax la bedelayo dadka ugu badan wax bedeli karaya ay yihiin dadkaas. haddii wax la xumaynayo dadka ugu xumayn karaya ay yihiin dadkaas. marka waxaan insha Allah rajayn doonaa inaad caawa 3 mowduuc bay kala qaadan doonaan panelkeenu. 3 mowduuc si fiican bay falanqeyn doonaan wixii midmadow ah ama tabasho ah ama isleedihiin waad u sii baahan tihiin. su'aaluhu way noo furnaan doonaan badanka wax ku qaadan doonaa su'aalaha iyo jawaabaha. marka aad u mahadsantiin wada soo dhaweynaya oo ku mahadsantiin si wanaagsan aad noo soo ajibteen. fadhida panelka inoo fadhida Sheekh Cabdicasiis Xuseen Saalax محمد عرادن ياسين محمد فارح دمانتين بوادين مهد علينا وحان كلو مهد علينا أرضيدا كلا دودون مانتا هالكا قلنكي هوري dood iyo maxaan ku raadey falanqeynta ku qaatay ku sameeyay ee ka socda jaamacadaha gobolka saddexda jaamacadood Sanaag, Golis iyo Bariga Afrika. waxay noo bilaabmi doona insha Allah dooda iyo waxa weeye wixii su'aalo jira oo weydiimo jira oo ay nooga jawaabi doonaan dhammaan waxa weeye xubnaha halkan fadhiya u diyaarka inay ka jawaabaan. intaas kadib kolleyba maanta wixii hadal ahayn kala qaadanay caawa waxaan jecel lahay inaan uga faa'iideysano oo waqtiga dhan aynu ku ilaalino maxaan ku raadayay inaan wax kala kororsano. waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay aqoon-yahankii hogaaminayay kulan dood cilmiyeedkan iyagoona si faahfaahsan ugu dheeraaday nabadda iyo sida ay muhiim u tahay in aqoon-yahanku ka qayb qaataan. sidoo kalena daadihiyaasha doodda waxaa halkaasi lagu weydiiyey su'aalo kala duwan kuwaas oo ku saabsan sidii loo sii joogtayn lahaa kulamada noocana. marka si nabadgelyada looga shaqeeyo waxaa loo baahan yahay dhowr qodob. qodobka koowaad waxa weeye in dhalinyaradu la baro bulshadooda. maanta sida muuqata dhalinyarada iyo bulshadu isku xidhna. tusaale ahaan waxaad ka garanaysaa colaadii berigii loo ka dhacay Ceelfweyn oo ahaa nabarka ugu weynay nagu yaala deegaanka reer Sanaag. maalinta dagaal dhaco Facebook wuxuu ahaa meel yani uu dagaal caadi ka soconayo. dhalinyaradu waxa jira waxyaabo ay kaga duwan yihiin dadka kale. waxay kaga duwan yihiin karti bay leeyihiin. waxay leeyihiin maskax cusub oo diyaar u ah inay wax qaadato. waxay keentay qof hadaf khaldan leh iyo mid hadaf saxan leh mid walba inuu is yiraahdo alla ilaahay cidda waxaagu kuugu fuli karaan waa dhalinyaro. hay'adda Soydafo oo soo bandhigtay ama qabatay xafladan dhalinyarada isku weydaarsanayaan aqoon khusaysan nabadda. ereygan wuxuu ka mid yahay isaga iyo laba eray oo kale qalab ama habab loo isticmaalo in dhulalka ama ay aafeeyeen dagaaladu ama marka ay ka jiraan ama ay ka soo kabanayaan in lagaga fududeeyo dhibaatooyinka dhacaya ama dagaalada. ereygan peace building iyo peacekeeping iyo preventive diplomacy waa saddexda qodob ee badanaaba wadamada caalamku marka dagaal meel ka dhaco
ama uu aafaya ama loo taag waayo ay u adeegsadaan. tusaale ahaan waxaa ka mid ah peacekeeping baynu soo qaadanaynaa. peacekeeping waa meel markaa uu ka jiro conflictigii toos uga soconayo. runtii annagu waxaanu ka mid nahay laamaha dawliga ah ee nabadgelyada u xilsaaran kana shaqeeya kana qayb qaata. waxaan bulshada weliba bahda aqoon-yahanka kula dardaarmayaa una soo jeedinayaa annagu aan leenahay shaqaalaha dowladdu waxay u shaqeeyaan oo ay shaqaale u yihiin waa shacabka. waxay qaataan cashuurtiinii. sidaa awgeed barnaamij aad qof mas-uul ah aad xuquuqda aad ku leedihiin aad kula xisaabtantaan. waxaanu diyaar u nahay idinkana codsanaynaa inaad xuquuqda aad xaq noogu leedihiin inaad nagu casuntaan nagulana xisaabtantaan. Cabdirasaaq Maxamed, Jaamac Sugile, Saab TV, Ceeri Gaabo.